wuxuu dhameeyey jaamacaddii wuxuuna ahaa shaqadoon balse wax shaqo ah ayuu waayay meel kasta uu tagana lama aqbali jirin oo shaqada waa loo diidi jiray asigoo yaaban oo xaaladii ku cakiran tahay ayuu maalin dambe meel shaqo looga tilmaamay subaxii xigay waa uu kalahay asigoo meel boosteejo ah taagan ayuu ku arkay islaan waayeel ah oo meesha iska fadhiso oo tuugsanaysa cid kastana ay iska agmarayso wuu ka naxay wuxuu is yidhi sadaqo baxso laga yaabee in shaqada lagu aqbalo kadib islaantii wuxuu siiyey intii uu awooday kadib ayay duco badan ka dabaridday iyadoo ilmaynaysa kadib wuxuu sii aaday meeshii uu u socday oo shaqada looga sheegay maalmo kadib ayaa natiijadii shaqada ugu dambayn noqotay in aan haddana la aqbalin oo shaqada loo diiday asigoo aad u caraysan ayuu dhahay aniga nasiib ma lihi nasiib daradan maxay tahay xilligaas jawaab wuu u waayey su'aashiisii balse mar ay ka soo wareegatay sannad asigoo xaaladdiisii isbeddeshay oo meel fiican shaqo ka helay ayaa nin oday ah oo faqiir ah soo agmaray markaasuu yidhi wiilkaygow ma i garanaysaa wuxuu ku jawaabay maya wuxuu yidhi waxaan ahay odaygii kugu qaabilay xafiiskii aad timid sannad ka hor adigoo shaqadoon ah maalintaad imaaday kadib bil markii laga joogay waxaa naga gubatay shirkaddii oo khasaaro culus naga soo gaaray naf iyo maalba ah adiga allah ayaa kaa badbaadiyey dadkii xilligaas la aqbalayna badankood wakhtigoodii ayaa meesha ku dhammaaday kadib wiilkii wuu naxay wuxuu soo xusuustay hadalladiisii markuu xilligaas arkay natiijadii u soo baxday wuxuu soo xasuustay islaantii meesha boosteejada fadhisay iyo markii ay u ducaynaysay wuu iska ilmeeyey wuxuu soo xasuustay in allah uu ka badbaadiyey khatar ku imaan kartay haddaba walaal ogow ducooyinka qaar allah wuxuu kaaga badbaadiyaa khatar kugu imaan karta wanaaji malada allah